faahfaahinta warkani waxa magaalada Stockholm nooga soo diray wariyahayaga Cabduqaadir Salwa. garyaqaan Cabduqaadir Axmed Maxamed oo garyaqaan Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed wuxuu qabtay ummadaha kalena caawina ayaa waxa uu degan yahay wadankan Sweden. garyaqaanka ayaa waxa aan booqasho ugu tagnay magaalada Katrineholm halkaas oo kula kulmay jaaliyada Soomaaliyeed isla markaana uu ku soo bandhigay waxqabadkiisii. kulankiina sidan ayuu u dhacay. اسمه garyaqaan Cabduqaadir Axmed Maxamed oo garyaqaanada Soomaaliyeed ku sugan dalka Sweden kana shaqeeyay arrimo badan oo bulshada siyaasi kamid ah xisbiyada siyaasadeed ee Sweden. bismillahir rahmanir rahim anigu magacaygu yahay Cabdicasiis Nuur Axmed oo ku hadlaya magaca dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool Katrineholm kuna hadlaya magaca aqoonyahanada reer Katrineholm. waxaan maanta sharaf weyn oo inaan soo dhaweeyo walaalkan garyaqaan Cabduqaadir Axmed Maxamed. Cabduqaadir waxaan leeyahay gacan furan ku soo dhawo magaalada Katrineholm. garyaqaan Cabduqaadir waa garyaqaan Soomaaliyeed wax badan u qabtay ummadda Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. anigoo Maxamed Cilmi Siyaad Maxamed Kaar waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo oon ku soo dhaweeyo da'da aan ahay iyo magacaan leeyahay iyo waxaan la damacsanahay inaan ku soo dhaweeyo ayaan jecelahay garyaqaan Cabduqaadir Axmed Maxamed oo nin aqoon-yahan oo nin reer Hiiraan oo nin Soomaaliyeed oo aqoontiisa in laga faa'iideysto ayay saxan tahay. dal kasta iyo dad kasta iyo deegaan kasta barwaaqadiisu waxay ku xiran tahay inta aqoon-yahankiisu la egyahay. marka dalka Soomaaliyeed ayuu wuxuu u yahay ximin muhiima waa nin abukaata ama xeer ilaaliye ama yacni dhaqan aqoon dhan walba haddii loo eesho ninka aqoon-yahanka oo magacan weyn leh anigoo kamid odayaasha Katrineholm ayaan ku soo dhaweynayaa magacayga sidaan horeyba u sheegay. waxaan leeyahay soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow. anigoo ku hadlayo magaca gudoomiyaha warmacad Sweden jaaliyada waxaan halkan ku soo dhaweynayaa garyaqaan Cabduqaadir Axmed Maxamed oo aqoon-yahan munaasabadan intuu ku soo dhawow Cabduqaadir Katrineholm. Bismillahirrahmanirrahim. aad iyo aad baad mahadsantihiin soo dhaweyntaad soo dhaweyseen. waa soo dhaweyn qiimo qaayale dadka halkan isugu yimid kulligeen aad iyo aad ayaan ugu mahadinayaa. sidii hore loogu dhawaajiyey waxaa la yidhahdaa Cabduqaadir Axmed Maxamed waxaan ahay ilaa haddadan garyaqaan saldhigiisu yahay magaalada Nyköping ee gobolka Sörmland oo Katrineholmada hadda aan taaganahay ay ka tahay degmo ka mid waxaan rabaa inaan idiin sheego in ilaa muddo dheer aan ka howlnaa daafacaadda dadweyne badan oo shisheeye waxa Soomaalida u taqaano ajnabi oo ay ugu badan yihiin Eritrean, Ethiopian, dad badan oo Caraba iyo dad badan oo lamid iyo jaaliyeynta Soomaaliyeed magaalo kasta joogaan oo aan muddo dheer aan ka caawinayo waxyaabo badan ay kamid yihiin tusaale ahaan socdaalka dad badan ay malaga qaatay oo maaragtay aan ka howlgalay. waxaa kaloo kamid tusaale ahaan waxyaabo badan oo go'aamada maamulka waayo go'aamooyinka maamulka ayaa lug ku leh tusaale ahaan ilmaha dadka laga qaadanayo waayo waa go'aan maamuleed oo maxkamad ay gaarto laakiin wuxuu ku salaysan yahay xeerka maamulka dalkan waxa loo yaqaano Förvaltningsrätt. laakiin dad badan waxaa jira oo aan ka caawiyo sida shirkado loo furto ay ka mid yihiin Suuriyiin ay ka mid yihiin dad kale oo Afrikaan ay ka mid yihiin dad Soomaaliyeed. waxaa jirto 6 sano ka hor 7 sano ku dhawaad markii Soomaalida laga xiray maaragtay waxaan loo yaqaan xawaaladaha waxaan daafacay dahabshiil Qaran Express iyo ka iyo Olympic. waa Cabduqaadir Salo wadankii Sweden.